haweenayda tan qoyskeedii ama ehelkeedii waxay aaseen subaxnimo laakiin qabriga ayay ka soo baxday goor galaba arrintaasna waxaa sabab u ahaa laba dameer waa qiso tilmaamaysa cajaa'ibta rabbi ee khalqigan dhexdiisa dhex taalla bal dhegaysa qisadaani xaqiiqada ah ee dhacday ee halka kan aanu idinkugu soo gudbinayno haweenaydan la aasay subaxnimada qabrigana ka soo baxday galabnimo waa haweeney u dhalatay dalkaasi Tuunis dhacdo la yaab la qabsatay haweenaydan ehelkeeda ama qoyskeeda aasay goor subaxa kadib markii la cilaamiyay ama la sheegay inay geeriyootay laakiin galabtii ayay ka soo baxday qabriga iyadoo nool oo hadlaysa arrintaasna sabab waxa uu ahaa laba dameer oo door weyn ka qaatay in la ogaado inay nooshahay haweenaydan wargeys ka soo baxa dalkaasi Tuunis oo lagu magacaabo Ashuruuq ayaa wuxuu ka warramay dhacdada tan waxayna ka dhacday deegaan kaga beeqan jihada koofureed ee caasimadda Tuunis oo u jira 283 kiiloomitir wargeyskaasi wuxuu sheegay haweenayda inay ahayd mid xaas ah laba carruur ah ayay wadatay miyir dabool baa ku dhacay waana la garan waayay waxa sabab u noqday arrinkaas xanuunada ka mid ah oo miyir daboolkaasi ka dambeeyo la garto la fahmay ma jirin muddo ayay miyir daboolkaasi ku jirtay ama koomaha qoyskeedii wuxuu maleeyay ama dadkii waxay moodeen inay dhimatay waxay go'aansadeen mar hadday dhimatay sida aamineen inay kafan u soo gadaan oo kafanta u raadiyaan tacsiyadeedana cilaamiyaan ama sheegaan dad badan oo qaraabadeeda ka mid ah ayaa soo xaadiray ayagoo aaminsan inay haweenayda dhimatay subaxii baa la qaaday qabriga loo qaaday in la aasaana la doonaya salaad janaasa lagu tukaday markii la aasay ee la duugay dadkii waa soo noqdeen si tacsideeda ay halkaasi uga sii wadaan oo ay ugu murugoodaan wuxuu kaloo tilmaamay wargeyskaasi arrinta la yaab kale ee dib ka soo baxday oo ah haweenaydan in ay noolayd nolosheedana lagu ogaaday laba dameer haweenay ayaa waxay lahayd laba dameer oo deegaanka iyaduna deganayd ee haweenaydaani ka geeriyootay ama ku geeriyootay labadeeda dameer waa u xirnaayeen galabkii markii la gaaray ayay xariggii ka furtay si ay ugu kaxayso meel ay rabtay inay geyso hase yeeshee waxay aadeen dhinacii qabriga ama qubuurta deegaanka meel kale ay jiha kale inay aadaan dameeradii waa diideen kolkii dambay tiri bal aan daba galo waan raacay bay tiri qubuurta markay ku dhow yihiin baa waxaan maqlay cod qubuurta mid ka mida ka soo yeeray muhiimad ma siin bay tiri sababtoo ah waana cabsaday meeshaan taagnaa inaan dhaafo xagga hore u dhaqaaqo dhinaca qubuurta waa awoodi kari waayey dameeradii baan isku dayay bay tiri inaan soo leexiyo soo kaxeeyo waa ay suurtageli weyday bay tiri arrinkaasi mar labaad iyo mar saddexaad baan isku dayay natiijo la'aan baa ii soo baxday mar kalaan waxaan maqlay bay tiri codkii markaasaan geesinimo intaan iska muujiyey ayaan waxaan go'aansaday codkaani qabriga si gooni uga soo baxaya inaan hubsado qubuurtii baan ku dhowaaday mase waaba qabrigii haweenaydii heblaaye ah oo ay taqaanay daris ahaayeen saaka lagu aasay waan soo orday bay tiri anoo qoyskii iyo dadkii iyo deegaankii ka dhex qaylinaya oo dhahaya qabrigii heblaaye lagu aasay cod baa ka dhex yeeray dadkii dhan waa soo yaaceen oo qubuurtii bay soo aadeen qabrigii bay faageen mase haweenaydii la aasay saakay waxay ugu tageen qabriga gudihiisa iyadoo nool oo kafantii inta jeexjeexday madaxeeda ka qaaday halkii baa laga soo bixiyey ayagoo dadku yaaban yihiin waa qof la aasay oo soo noolaaday xaqiiqatan markii hore ayagu may soo hubsan geerideeda inay rasmi ahayd iyo in kale way iska aaseen laakiin alla dilaa dhinta qofka marka tiisa dhammaata ayuu adduunyadan dhaafayaa si kastoo loo aaso xitaa asagoo nool oo soo jeeda haddii la aaso damiirkiisa la aaso dadnimadiisa la aaso waa uu noolaanaya qofka ilaahay nolol iyo farxaad ugu talagalay ama uu qoray awoodda ilaahay cidina hor istaagi karto xitaa adiga laftirkaada wuxuu alla kuu qoray adaan hor istaagi karin wanaagu alla kuu qoray iyo irsaaqada alla uu kuu qoray xitaa adigu ma diidi kartid iska daa qof kale inuu hor istaaga ama uu kuu diide marka ilaahay awooddiisa iyo nicmooyinka uu nasiiyay inaynuga mahad celino waa shay muhiima oo loo baahan yahay waayo adigu markaad yarayd rabbi ayaa ku soo tarbiyeeyey allaha u mahad celi markaa ahayd mid tabar daran oo daciifa allah ku xoojiyo ku qoweeyey allahaasi u mahad celi markaad faqiirka ahayd ee qalbiga faqiirka ka ahayd ama adduunyada iyo maadiga faqiirka ahayd allah qani kaa dhigay allahaasi u mahad celi markaa wax weydiisanaysay allah ku siiyey waxaad rabtay allahaasi u mahad celi markaad xanuunsanayd allah ku caafimaadiyey allahaasi u mahad celi markaad qaawanayd allah dhar ku siiyey
oo ku asturay allahaasi u mahad celi markaad safartay allah kula saaxiibo safarkaada ilaalinayay allahaasi u mahad celi markaad maqnayd allah ku soo nabad celiyey allahaasi u mahad celi markaad dhunsanayd ama habowday oo xaqaad ka leexatay allah ku hanuuniyey allahaasi u mahad celi markaad dhawaaqday allah ku ajiibay allahaasi u mahad celi ilaahay baynu u mahad celinaynaa rabbigeenna waaxidka mahad celin aad iyo aad u tiro badan markaad dhalatay ismaadan ogayn oo mada garanayn axadka caloosha hooyada kaa soo saaray markaad dhimanaysidna waxba ma ogid qofka qabriga ku gelinaya ma garanaysid wuxuu yahay ibni aadanow la yaab baad leedahay markaad dhalatid waa lagu nadiifiyaa waa lagu qubeeyaa markaad dhimatidna sidoo kale waa lagu qubeeyaa waa lagu nadiifiyaa la yaab baad lahaatay ibni aadanow markaad dhalanaysid ma garanaysid dadka kugu farxaya oo kugu bishaaraysanaya markaad dhimanaysidna garan maysid dadka kuu ooyaya ama kuu murugoonaya la yaab baad lahaatay ibni aadanow caloosha hooyada markaad ku jirtay waxaad ku jirtay meel ciriiriya oo mugdiya sidoo kale markaad dhimanaysidna waxaad ahaanaysaa oo ku jiraysaa meel ciriiriya oo mugdiya oo qabriya la yaab baad lahaatay ibni aadamow markaad dhalatid mara yar baa lagugu qabtaa oo lagugu daboolaa oo lagugu asturaa markaad dhimanaysidna sidoo kale kafan ayaa lagugu asturaa la yaab baad lahaatay ibni aadanow markaad dhalatid oo aa weynaatid dadku waxay ku weydiinayaan waxbarashadaada shahaadada meeshaad ka qaadatay iyo khibraddaadu intay la eg tahay laakiin sidoo kale markaad dhimatidna malaa'igtu waxay ku weydiinaysaa camalkaada wanaagsan ee aakhiradaada maxaad u diyaarsatay berri baa inay noqoto laga yaabaaye baaraka allaahu fiikum